wardegdega dagaal culus ayaa ka qarxay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyada oo ciidankii lafta gareena caawa ay gudaha u soo galeen magaaladaas daryanka hubkan culus ayaa la maqlayaa rasaas ayaana roobka la isaga dhigay caawa waxaana magaaladaas ka taagan xaalad quusa bal ila arag daryanka hubka iyo dhawaqa rasaasta ee gudaha Baydhabo caawa ka holcaya haddaba waxaan ku soo gudbinayaa dagaalkan culus ee caawa ka qarxay magaalada Baydhabo iyada oo dhawaan lafta gareen uu dhabar jibiyay madaxweyne aadan madoobe isagoo oo la wareegay beejkii madaxtooyada isla markaana tirtiray dhammaan muuqaaladii iyo qoraaladii aadan madoobe xitaa doorashadii koonfur galbeed waa la dhileed garay dhammaan waa laga tirtiray waxaana gacanta uu ku dhigay beejka isaga oo caawana duulaan cir iyo dhula ku soo qaaday gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay haddaba dagaalkan culus khasaare intee la eg uu dhaliyay waxaan ku hayaa xog iyo macluumaad dheeriya oo soo baxaya si toos ah ayaan u tagaynaa magaalada Baydhabo waxaana la hadli doonaa dad goob joogayaal oo halkaas ku sugan waxaan ku soo gudbinayaa xog iyo macluumaad dheeriya oo ka imaanaysa gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sidoo kale mar kale dawladda federaalka ee Soomaaliya garab ma siinaysa la yiri aadan madoobe aadan maamulkaas waa loo afduubay gacanta loo galiyay madaxweyne looga dhigay haddii uu xijisan waayo isagay u taala xasan sheekh waxa la yiri hub ciidan iyo lacag dambe kuma khasaarinayo aadan madoobe isaga laga rabaa baa la yiri inuu difaacdo magaaladii gacanta loo galiyay haddaba aadan madoobe ma sii haysan karaa Baydhabo waa isla falaqeynayna dagaalkan dhacaya khasaaraha uu dhaliyayna waan ku hayaa soo dhawo muuqaalka like saar saaxiibadan u sii share garay waa mahadsantahay caawa oo ay tahay habeen khamiis soo galayso ee arbacana ay sii baxayso 1 Luulyo 2026 waxaa dagaal culus magaalada Baydhabo ku soo qaaday ciidanka amar qaata taliskii hore ee halkaas looga adkaaday ee uu hogaaminayay Cabdicaziz Xasan Maxamed lafta gareen wali wuxuu isku haystaa ninkan in uu yahay madaxweynaha South West ee sharciga ah isla markaana awood dawladeed looga adkaaday ee uu maamulkaas isagu madax ka siiyay ayuu isu arkaa haddaba maxaa dhacay ciidankiisu waxay soo weerareen xaafadaha xanaanatu ama xanaana labo iyo sidoo kale xaafada suuqa xoolaha tawfiiq iyo area kale iyada oo ugu dambeeyna rasaasta ay soo gaartay bartamaha magaalada Baydhabo oo ugu horeeyo saldhigga magaaladaas oo la soo warinayo in dagaal culus uu ka dhacay ciidanku waxay qorsheysteen waa garabka lafta gareene in si toos ah ay ula wareegaan Baydhabo waxaadna ogeedeen dhawaan afhayeenka Cabdicaziz lafta gareen oo ka soo hadlay dhulka howdka ee Baydhabo inuu sheegay inaysan isdhiibeen isla markaana ay la wareegi doonaan magaalooyinkii ay hore u xukumayeen hadda waxaa muuqanaysa marka in Cabdicaziz lafta gareen iyo taliskiisii ay mar kale dib u soo laba kacleeyeen iyagoo doonaya in si awooda ay xukunka kula wareegaan waxa kale oo xusid mudan in ciidan dawladda ka tirsan oo lafta gareen hoos kala socday ay goosteen saacadihii ugu dambeeyay saraakiil ciidan oo dawladdu aamintay ayaa kamid ah oo safka aadan madoobe ka baxay waxaana aadan madoobe hadda uu wajahayaa baa la yiri xaalad ciriiri xitaa ma maamulo beejkii madaxtooyada koonfur galbeed oo Cabdicaziz lafta gareen ayaa la wareegay lafta gareen madaxweynaha sharciga ee koonfur galbeed ayaa waxa markaasi uu isu haystaa isaga wuxuuna la wareegay xaruntii rasmiga ahayd ee madaxtooyada wararkeeda lagu faafinay waa villa koonfur galbeed ama South West lafta gareen bogga rasmiga ee madaxtooyada koonfur galbeed ayuu la wareegay wuxuuna ka saaray dhammaan muuqaalada iyo qoraalada hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed iyo guud ahaan tallaabooyinkii la qaaday isaga markii laga saaray Baydhabo 30 March ee sanadkan wixii ka dambeeyay sidoo kale Cabdicaziz lafta gareen ayaa bogga Facebook ee South West of Somalia ku shaaciyay qoraal oo ugu hambaliyay shacabka Soomaaliyeed isagoo la wadaagay farxadda munaasabada 1 Luulyo oo ku beegnayd waxaan hambalyo leeyahay buu yiri shacabka Soomaaliyeed munaasabada qiimaha leh ee 1 Luulyo maalinta xorriyadda iyo midowga gobolada waqooyi koonfur iyo waqooyi ayuu yiri ayaana lagu sheegay qoraalka Cabdicaziz lafta gareen dhinaca kale waxa isla bogga la soo galiyay muuqaal uu iska soo duubay afhayeenka lafta gareen oo ku sugan banaanka Baydhabo isaga oo markaasi ka hadlay howlgallada ay ka wadaan halkaasi wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda ilaa ay dib uga soo laabtaan Baydhabo halgankeena barakeysan ma istaagayo waanu guuleysanaynaa waqtigu waa dheeraan karaa waana gaabnaan karaa intaba diyaar ayaan u nahay goor kasta iyo goob kasta ha noqotay ayuu yiri ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah ugaaska markaasi aan idhaahdo ee afhayeenka Cabdicaziz lafta gareen si kastaba ma jirto ilaa hadda wax hadal oo ka soo baxay dhinaca maamulka cusub ee koonfur galbeed oo aadan madoobe ugu horeeyo
oo ay uga tallaabo uga qaadayaan in peedkoodii si awooda lagula wareegay iyo dagaaladan lagu soo qaaday inkastoo weli gacanta ay ku hayso ama ay ku haysato telefishinka ku hadla afka koonfur galbeed oo lagu baahiyay tallaabooyinkii ugu dambeeyay maamulka gaar ahaan xuska sanad guurada 66aad ee koonfur galbeed iyo midnimadii gobolada waqooyi iyo koonfur ayaa haddana peedkii telefishinka way haystaan qolada aadan madoobe laakiin gacantooda waxaa ka maqan madaxtooyadii dhammeyd ee warka madaxweynaha lagu baahin lahaa isla markaana afkiisa ku hadli lahayd haddaba cabdilcasiis lafta gareen mar kale ma laga yaabaa in si awooda uu ugu soo laabto baydhabo haddiise uu soo laabto aadan madoobe muxuu la kulmi karaa dagaalada dhacaya yaa qaadaya mas-uuliyadooda aragtada qayd faalada nooguleeb waas xasan muuqaalka uu ka soo diray hoodka baydhabo isagoo oo hanjabaya weliba dhahaya nasriga ilaahay waa soo dhowah sida argagixisado kale u hadlayaa ninkan wuxuu leeyahay waanu furan doonaa goordhow nasriga ilaahayna wuu soo dhow yahay oo ma degdegayna ayuu leeyahay muuqaalkaas ayaan kula wadaagayaa ila daawo like ha ilaawin subscribe soo dheh channelka saaxiibadaana usii share garee waa mahadsantahay kuwa aaminsan kuwa duurka jiraayay duurka kuma noolaan karaan waa ku noolaanaynaa waana joogaynaa magaalooyinkana innagaa iskale waa imaan doonaa waana furan doonaa ilaahay nasrigiina waa qariib insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idhaahda shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya aan u sheego meel walba ay dunida ka joogaan kuwa beenta iyo barbogandada saxaafadda la fadhiya ee sheegaya dowladda koonfur galbeed inay wada hadal kula jirto sida ay ayaguba sheegeen garab kaloon annagu ogeyn inaanay waxba ka jirin